ma doonaysaa in risqiga lagu waasiciyo? haddaba waxaan kuu hayaa 4 arin oo haddii aad samaysid risqiga lagu waasicinayo. arinta koowaad waa at-tawakkul, tala saarashada Allah subhanahu wa ta'ala. nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu ad-dayr. ilaahay haddaad tala saara laheedeen, tala saarashada dhabta ah wuxuu idin irsaaqi lahaa sida shimbirka uu u irsaaqo. taqdu qimasan wa ta'uudu bidana. shimbirku wuxuu ka lahaa asagoo baahan, wuxuuna soo laabtaa galabkii asagoo dhargan. arinta labaad ee risqiga haddii aad samaysid risqiga lagu waasicinayo waa taqwa Allah. ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay: waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. qafkii Allah ka baqo, ilaahay wuxuu u sameeyaa faraj, wayarzuqhu min haythu la yahtasib. wuxuuna ka irsaaqayaa meel uusan filanaynin. arinta saddexaad oo haddii aad samaysid risqiga lagu waasicinayo waa al-istiqaama ama toosnaanta aad diinta ku toosan tahay. ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu leeyahay: wa an law istaqaamu ala ad-dariiqati la asqaynaahum maa'an qadaqa. hadday ku toosnaan lahaayeen wadada saxda ah, waxaan waraabin lahayn biyo fara badan. arinta afaraad ee haddii aad samaysid risqiga lagu waasicinayo waa silatu rahim ama qaraaba xiriirintu. النبي وحيري صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قفكي جعل إن رزقه سلو واسعيه عمرنا الله ديريو قرابدي سححريريو. النبي وحيري صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. قراب حريريها ما أهن متك أبا الجدها قرابدها دي إسو حريريسو حريرينيو، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. قراب حريريها ومتك هدي قرابدي سجويسو حريرية كاس أيا ليرادا قراب حريرية. قراب حريرين توحي كم انتهاي وحيابها رزقك لوغو واسعي قفك. رزقك شرط معهن إنو نقض العكلية، وحو نقون كرا قلبك وكودك، وحو نقون كرا إن لغو وافجيو عباده، وحو نقون كرا إن لغو وافجيو طلب العلم، wuxuu noqon karaa in lagu siiyo zawja saalixa, wuxuu noqon karaa inaad heshid zawj saalix ah, wuxuu noqon karaa in aad heshid caafimaad. kalimadeenina intaas ay noogu eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.